xilli ay sii kordhaysay xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa marba markay ka sii dambeysay waxaa cirka isku sii shareeraya xiriirka diblomaasiyadeed ee ka wanaagsan ee dawladda Soomaaliya ay la yeelanayso beesha caalamka gaar ahaan dalalka ku yaala geeska Afrika. wasiirada arrimaha dibadeed ee dalalka Masar, Eritrea iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa wax ku kulmeen magaalada New York ee dalka Mareykanka. wasiiradan ay waxay qayb ka yihiin wufuud caalami ah ee lagu casuumay inay ka qayb galaan shirka loo dhan yahay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee maanta la filayo inuu halkaasi ka qabsoomo. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in dawladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ay ka wada hadleen iyo sidoo kale sida iska kaashanayeen xiriirka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar. qaasatan waxay si gaar ah iska kaashan doonaan dhinaca ammaanka iyo difaaca iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan siyaasadda. ayagoona markaan doonaya in dawladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ay iska kaashadaan dhinaca ammaanka maadaama dawladda Itoobiya ay markaan firigal baan ku hayso badda Soomaaliya iyo sidoo kale midnimada ummadda Soomaaliyeed. tan iyo bilowga sanadkan 2024 iyo dawladda Itoobiya waxa ay wadanka Soomaaliya ku waday qoqoltooyin iyo xag ammaan dabra iyadoo hub kala duwan ku soo daabashay gudaha dalka Soomaaliya. ayadoo waliba xiriir la yeelatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee ugu horeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo Puntland iyo Somaliland oo horey ay heshiis oo la gashay dawladda Itoobiya. arrintan waxa si weyn kaga biyay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ayagoona ku tilmaamay arrintan ay tahay dandansi iyo sidoo kale gardarra aan geed la isugu soo loobin. dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa wacad ku martay in ay ilaalin doonto midnimada iyo qabka ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay gacan adag ku qaban doonto cid kasta oo ku soo xadgudubta badda Soomaaliya iyo bariga ummadda Soomaaliyeed. dawladda Turkiga ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaadanaysa difaaca ummadda Soomaaliyeed iyo baddoodaba waxayna kala hore ay heshiis dhinaca difaaca la gashay dawladda iyadoo maraakiib waaweyn oo markaasi ilaalin doona biyaha badda Soomaaliya markaas ay u soo dirtay dalka Soomaaliya isla markaana waxay ka hortagi doonaan cid kasta oo ku soo xadgudubta badda Soomaaliya. wadahadallada la filayay in dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka furmaan magaalada Ankara ee dalka Turkigana waxa la sheegayaa in markaasi uu fashilmay. wadahadalladaasi isla markaana aysan jirin dawladda Soomaaliya waxa wadahadal ay gelisay dawladda Itoobiya ilaa ma ay ka laabatay heshiiska sharci darrada ah ee bishii January bilowga sanadkan 2024 ay la gashay maamulka Somaliland. dawladda Itoobiya oo muuqata in heshiiskaas ay ka laaban doonto waxaana moodaa in dalal shisheeye ay ka goosaysato isla markaana ay ku gacan siinayaan gardarrada gurracan ay kula kacday biyaha iyo badda iyo sidoo kale midnimada ummadda Soomaaliyeed. wixii wararka ku soo kordhay daawadayaal halkan ayaad ka dhageysan doontaan oo aad ka daawan doontaan dabcan page-kan Lexar sino share gare bartana TikTok ay soo kale nagala socon kartaan sidoo kale waxaan nagala daawan kartaan page-keena ama sidoo kale bartana X ama Twitter loo heli jiray iyo YouTube-kana dhalka dunida. aad ayay u maasantay daawaday.